Assalaamu calaykum. Shimbiraha waa kuwa Ilaahay Qur'aankiisa ku xusay ayagoo samada sare haabayo. Cid haysan aysan jirin Ilaahay mooyee. Haddaba waxaan barnaamijkeena ku soo xula doonaa 10 shimbirood ee ugu duulista dheer hawada sare ee samada. Lambarka 10aad Wad Strack. Shimbirahan waxaa laga helaa Sub-Saharan Africa ilaa Hindiya Subcontinent-ga. Waana xayawaan jaray kara masaafo aad u dheer oo ah 4800 oo mitir. Waxayna ku duulaan 16,000 oo feet. Lambarka 9aad Bar-tailed Godwit. Noocyada Bar-tailed Godwit waa nooc ku nool dhulka ugu fog dunida ee Arctic. Waxayna caan ku yihiin safarka, waxayna leeyihiin duulimaad aan joogsi lahayn, waxayna ku duulaan 20,000 oo feet. Lambarka 8aad waxaa soo galay Mallard, waa nooc shimbiro ah, waana noocyo kala duwan oo laga helo guud ahaan South Africa, Australia iyo Brazil. Waxayna ku duulaan 21,000 oo feet. Lambarka 7aad Andean Condor. Shimbirahan waxaa laga helaa buuraha Andes, waana mid ka mid ah shimbiraha ugu cimriga dheer adduunka, ayagoona ku duulaan 21,300 oo feet. Lambarka 6aad Bearded Vulture, sidoo kalena loo yaqaan Lemurger, waxaa laga helaa buuraha dhaadheer ee Afrika, Yurub iyo Hindiya. Dhanka duulistana waxay ku duulaan 24,000 oo feet. Lambarka 5aad waxaa soo galay Albion Coach. Shimbirahan waxaa laga helaa Afrika, Aasiya, waxayna ku duulaan 26,500 oo feet. Lambarka 4aad Hoover Swan. Shimbirahan loo yaqaan Hoover Swan waa shimbiro waaweyn oo ka mid ah shimbiraha ugu duulista sareeya adduunka, waxaana laga helaa waddanka Finland, waxayna ku duulaan 27,000 oo feet. Lambarka 6aad Bar-headed Goose. Noocyada Bar-headed Goose waxaa laga helaa bartamaha Aasiya, waxayna degan yihiin harooyinka dhaadheer ee u dhow buuraha Koonfurta Aasiya iyo Hindiya. Shimbirahan waa kuwo ka mid ah shimbiraha ugu duulista sareeya adduunka, waxayna ku duulaan 29,000 oo feet. Lambarka 2aad Common Crane. Waa noocyo shimbiro ah oo kala duwan. Noocan waxaa laga helaa Yurub, Aasiya, waana mid ka mid ah shimbiraha ugu duulista sareeya adduunka dhererka duulimaadka, waxayna ku duulaan 33,000 oo feet. Lambarka 1aad waxaa galay isla markaana soo gunaanadaya barnaamijkan shimbiraha loo yaqaano ama shimbirka loo yaqaano Robles Vulture. Shimbirahan waxaa laga helaa bartamaha Afrika, gaar ahaan gobolka Sahel. Robles Vulture waxay ku duulaan meel sare oo ah 37,100 feet, taasoo xitaa ka sareysa heerka badda.